soo dhawaad saaxiibayaal muuqaalkeena maanta waa kooban yahay wuxuu ku saabsan yahay barnaamij ganacsi aan ku arkay London fursad ahaana aan siri waa ka banaayay wadankii haddaan barnaamijku gudagalo waa doomaha biyaha ku dul socda waliba doomaha yaryarka ah waxaan isla eegaynaa ama idin tusayaa sida u shaqeeyaan oo looga faa'iideystay iyo wadankii meelaha suurtagalka ka yihiin labadaas qodob baan isla fiireynaa oo muuqaalku falanqeynaa marka aan wada socono doonta aan rabay inaan la wadaago waa midaas hadda arkaysaan runtii aad iyo aad buu kooban tahay weyna yar tahay dad ahaan waxay qaadaa 8 qof bay xambaari kartaa halkii markaana waa bahashii oo si cidna wax way saarneen kaligood meel iska taala saas u yar tahay miis yar dhexda ku leedahay miiska yarka wax loogu talagalay dadka haddii cunooyin wataan cunadooda iyo waxooda wataan inay saartaan hareeraha saar dhinacyada looga fariisanayaa marka waxaa eegaynaa dadka raba inay raacaan ama dadku markay raacayaan imise u baahan yihiin inay bixiyaan oo kale ama dadka doonta ku shaqaysanaya imise ay dadka ka qaadayaan saa muuqaalka arkaysaan 1 2 3 4 lambarskaas wuxuu u taagan yahay saacad 1 saac 2 saac 3 saac 4 saac ka dhigan yahay saa arki kartaan oo kale saacada koobaad waxay ka bilaabanaysaa 69 ilaa 95 pound oo lacagta Ingiriiska weeyaan waxaa la siman 79 ilaa 105 marka waxay ka kala dhigan yihiin galinka hore oo kale 69 ilaa 95 bay ku kireenayaan galinka dambe oo kalena 79 ilaa 105 bay ku kireenayaan halkii saac mar walbana qiimaha wuxuu ku kala xiran yahay hadba markaas sida uu suuq yahay hadii ma aragtay aad iyo aad busy u yihiin oo kale qiimaha mar walba waa qaali sidaan soo sheegnay halkii doon waxay qaadaa 8 qof oo markaa doontooda raacaya dad isku qoys noqon karaan dad kala gedisan oo meesha ku kulmay noqon karaan hal mar wada kireystay oo qofba qayb qaatay si fiican inaan isla fahanay baan rajeynayaa marka waxaan fiireynaa barnaamijkan marka wadanka la joogo meelaha suurtagalka noqon karo kale aniga aragti ahaantayda waa meelaha wabiyada leh iyo sidoo kale magaalooyinka xeebaha leh gaar ahaan magaalooyinka waaweyn inkastoo hadda dad badan u dalxiis tagaan meelaha wabiyada leh waxaan aaminsan halkaas in fursad weyn ka jiro sida wabiyada Shabeelle iyo Jubbaba muuqaalkan saaxiibayaal intaas uu ku egyahay haddii aad garanaysid qof ganacsada ama ganacsi fursada wadanka ka raadinaya muuqaalkan la wadaag sidoo kale haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu cusub waxaan rajeynayaa in nagu soo biidhid haddaa YouTube naga daawanaysidna subscribe haddii Facebook naga daawanaysidna follow waxaa intaa dheer sidoo kale waxaan leenahay blog Telegram ama channel Telegram asna waad ku soo biiri kartaa